waxaan ogeysiinaynaa cadowga in maanta laga bilaabo aan xayiraad dhammaystiran ku soo rognay badda cas dhaqdhaqaaq kasta oo cadowga yuhuudda ka sameeyaan badda cas. war degdega xuutiyiinta yemen ayaa wacad ku maray inay tallaabo cad ay qaadi doonaan oo ay ku beegsan doonaan Israa'iil iyo sidoo kale xulafadeeda. markii ugu horeysay shalay ayay ahayd markii go'aan ka soo baxay xuutiyiinta yemen sidoo kalena weerar ay ka fuliyeen ee gudaha Tel Aviv iyo Ben Gurion ee garoonka Israa'iil ee Tel Aviv ku yaala iyo sidoo kale waxay xuseen inay weerari doonaan markab kasta oo ay leedahay Israa'iil iyagoo sidoo kalena xusay oo fariin gaar ah ay u direen ee Somaliland iyo bulshadeeda ay ku sheegeen in xitaa haddii ay suuragasho ay beegsan doonaan ee Berbera kadib markii la xusay in sirdoonka Mossad iyo sidoo kale qaar ka tirsan ee diyaaradaha Israa'iil ay ka howlgalaan ee gudaha Berbera. dhaqdhaqaaqyo ugu dambeeyay ayaa ka socda ee badda cas iyagoona ay sheegeen in halka ay suuragal ahayn inay soo maraan maraakiibta Israa'iil ay leedahay. xuutiyiinta Yemen waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin cad oo ay ku argusan doonaan iyagoona ay sheegeen in dhibaato kasta lagu sameeyay ee walaalahooda muslimiinta Iiraaniyiintu iyo Falastiiniyiintu ay ugu argudi doonaan Somaliland iyo Israa'iil iyo cid kasta soo raacda. xuutiyiinta Yemen waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo culus oo military ay ku beegsan doonaan ee maraakiibta Israa'iil ay leedahay ee mara badda cas iyagoona sheegay in ay qaadi doonaan tallaabooyin cadcad oo ay ku soo afjari doonaan maraakiibta u socdaalaya gudaha Israa'iil. waxay sheegeen inaysan marnaba suuragal ahayn in maraakiibta ay leedahay Israa'iil ama ay u socdaanba iyo sidoo kale cid kasto ay wax u wado Israa'iil oo ganacsi kala dhaxeeyo inay ka quusato intuu xiran yahay ee badda cas iyaguna ay sheegeen inay tallaabo cad ay ku qaadi doonaan markab kasto isku daya inuu ka gudbo ee badda cas iyo sidoo kale baabul mandab. xuutiyiinta Yemen waxay sheegeen in halka iyagu ay u xiran yahay iyagoona ay sheegeen inay saacidno ugu aab yeeli dooneen. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump ayaa fariimo kala duwan diray isagoona ugu baaqay xuutiyiinta inay furaan ee Mareykanka sidoo kalena uu ku hanjabay inay qaadi doonaan ciidamada Mareykanka tallaabooyin cad haddii xuutiyiinta Yemen ay isku dayaan qalqalgelinta amni ee Israa'iil. dhinaca kalena Mareykanka ayaa si rasmi ah u joojiyay madaxweynaha dalkaasi Trump weeraradii lagu beegsaday Israa'iil isagoona sheegay in Israa'iil iyo Iiraaniyiintuba ay si degdeg ah u joojiyaan kadib markii Israa'iil ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka uu ku amray in la joojiyo dagaalka si khasaaraha Israa'iil aysan u sii ballaarinin. dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump uu sheegay haddii isagu uusan ahaan lahayn in Iiraan Israa'iil ay ka adkaan lahayd isagoona sheegay in Israa'iil gabi ahaanba ay burburi lahayd taa looga baahan yahay dadka Yahuudda ee jooga Israa'iil inay ugu mahadnaqaan madaxweynaha Mareykanka ee Trump maadaama uu badbaadiyay ee dhulkooda. xaaladda bariga dhexe ayaa sii xumaanaysa iyadoo xuutiyiinta Yemen ay tallaabooyin qaadayaan lama ogase xilliga ay weerari doonaan ee Berbera iyo sidoo kale Hargeysa laakiin saacadii la soo dhaafay waxaa isa soo tarayay fariimaha jabaada oo la sheegaya inay ka socdaan Yemen ay ku wajahneed ee Somaliland taas oo sheegaysa inay tallaabo cad ay ku qaadi doonaan haddii ay joogsan waayaan iyo sidoo kale la shaqeynta ee Yahuudiyiintu ay imika ay wadaan. xuutiyiinta Yemen waxaa la sheegaa in fariimo aan la xaqiijinin si gaar ah ugu direen madaxtooyada Somaliland iyagoona kala hadlay inay joojiyaan xiriirka dhow ay la leeyihiin Israa'iil haddii ay joojin waayaanna ay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo taasoo xuutiyiinta Yemen ay ku sheegeen inay duqeyn doonaan Berbera iyo Hargeysa aysan marnaba u aabi yeeli doonin. xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin kasta ugu argudayaan ee muslimiinta ee Falastiiniyiintu Iiraaniyiintu iyo sidoo kale cid kasta oo muslima dhibaato loo geystay iyagoona ay sheegeen inaysan marnaba naxariisan doonin. sidoo kale waxaase la sheegaa oo aan la xaqiijinin in dhowr jeer tiro hore ee fariimo ay u soo direen ee Villa Soomaaliya taasoo ay kala hadlayeen inay qabsadaan walaalahooda muslimiinta sidoo kalena dowladda Soomaaliya u sheegeen in maadaama iyadu ay tahay dowlad madax bannaan oo awood leh ciidamo leh inay qabsadaan ee dowladda. arrinka waxay ugu wacan tahay in dowladda Soomaaliya ay sheegtay in Berbera iyo Hargeysa ay geen doonto dhawaan ciidamo iyada u gaar ah. safiirka u qaabilsan ee Soomaaliya ee Midowga Afrika ayaa wareysi uu siiyay telefishinka Al Jazeera ka hadlay in dhawaan ciidamo la geen doono Hargeysa iyo Berbera. tanina waxay noqonaysaa howlgalo adag oo ay fuliso dowladda Soomaaliya sidoo kalena lagu qorsheynayo in lagu ilaaliyo dhulka biriga badaba oo ay sheegtay dowladda Soomaaliya inay qaadi doonto tallaabooyin cadcad. arrinka dowladda Soomaaliland kama aysan jawaabin marka laga soo tago inay ugu jawaabtay kaliya
madaxweynaha somalilan oo ka hadlay in safaaradda israa'iil ee qudus ay dhowaan ay furi doonaan isagoona sheegay in somalilan safaaraddeeda qudus laga hirgelin doono 17-16 inta u dhexaysana madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro uu booqasho rasmi ah ku tagi doono magaaladii barakeysaneed iyo sidoo kale qibladii labaad ee islaamka ee qudus halka uu ka xarag jari doono safaaradda somalilan ay ku yeelan doonto ee qudus taa ay ka dhigan tahay in qudus somalilan ay ugu aqoonsan tahay inay leedahay israa'iil dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaa ka socda ee geeska afrika iyo sidoo kale ee bariga dhexe iyadoo aan loogeen xiisada gobolka ka taagan halka ay isla aadi doonto iyadoo iiraanna ay sidoo kale xustay horey inay aqoonsan tahay keliya dowlad la yiraahdo ee soomaaliya laakiin iiraaniyiintu ma aysan sheegin sidoo kalena inay tallaabo ay ka qaadi doonaan ee somalilan marka laga soo tago inay ugu degeen inay farageliyaan arrimaha bariga dhexe iyo sidoo kale colaada kala dhexeyso iiraaniyiintu iyo israa'iil dowladda federaalka soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay ciidamo toosa ay geyso hargeysa iyo sidoo kale ee berbera ayadoona qorshe uu yahay inay kala wareegto ammaanka halkaa iyo sidoo kale inay ka ilaaliso madaxtinimada ee dowladda hargeysa iyo sidoo kale ee berbera iyo sidoo kale goob kasta oo lagu ilaalin karo iyo sidoo kale dhul kasta oo soomaali ay leedahay inay ilaaliyaan ciidamada xoogga soomaaliyeed dhowaan dowladda soomaaliya waxay qorsheysay in ciidamo la geeyo ee maamulka waqooyi bari halkaa la qorsheeyey inay waana guutidii ugu horeysay oo ciidamaha ayagoona la qorsheynayo in ciidankaa ay la wareegaan ammaanka maamul goboleedkaas iyadoo imika maamul goboleedka uusan lahayn ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka soomaaliya marka laga soo tago in maamul goboleedka uu simaanayo ee dowladda soomaaliya sidoo kalena oo xubin uu ka yahay dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa qorsheynaysa kadib sheegitaankeeda geeyitaanka ciidamo oo hor leh ee hargeysa waxay sheegeen in ciidankii ugu horeeyay ee la geen doono ee waqooyi bari halkaa oo qorshaha uu yahay in loogu duulo hargeysa iyo berbera si gacanta loogu dhigo dowladda soomaaliyana ay dhulkeeda loo wareegto dhaqdhaqaaqyo culus ayaa socda inkastoo aan la ogeyn siyaasadahaas halka ay u socdaan haddana safiirkii hore ee maraykanka u qaabilsanaa ee soomaaliya wuxuu carabkiisa ku sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu yahay qofka sida weyn ugu ololeeya madax banaanida ee somalilan arrinka ayaa shaki badan dhaliyey kadib markii safiirku sheegay in madaxweynaha soomaaliya imika xasan sheekh maxamuud sidoo kalena tiro 2 jeer uu soo noqday madaxweynaha dalka uu yahay qofka u ololeeya ama sidoo kale qofka ugu weyn ee u ololeeya madax banaanida ee somalilan inkastoo dowladdiisa ay shaacisay in hargeysa iyo berbera ay geen doonaan ciidamo dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan ee gudaha ee soomaaliya iyo sidoo kale ee somalilan lama oga halka ay aadi doonto xiisada siyaasadeed halka xuutiyiinta yemen ay heegan buuxa ay geliyeen iyagoona ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin cad dhaqdhaqaaqyo culus ayaa warar kala duwan oo ka soo baxay ee hargeysa gaar ahaan madaxtooyada xafiiska madaxweynaha cabdiraxmaan ciro ayaa tibaaxayay inaan laga seexan ee xalay sidoo kalena ay ku jireen diyaargarow xoogan saacad kastana ay suuragal ay tahay inuu bilaawdo duqeymo ay iiraaniyiintu ama xuutiyiintu ay ku beegsan doonaan ee somalilan waxaa kaloo la sheegayaa in xafiiska madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro uu amar ku bixiyey sidii loo bilaabi lahaa ee qodista ee dhulalka si looga gambado gantaalada ay suuragal ay tahay in dhinaca iiraan iyo xuutiyiintu ay kaga yimaadaan laakiin cabsida ugu badan laga qabo xagga xuutiyiinta inay ka timaado waxaa isa soo taraya wararka sheegaya in xafiiska madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro oo amar ku siiyey madaxda kala duwan iyo sidoo kale injineero gaara loo xil saaray inay qodaan dhulka hoostiisa si wax looga qabto maalgelinta waxay qaadanaysaa israa'iil si dhulalkaasi loo qodo iyo sidoo kale kharashaadka ku baxaya haddiise dhacdo duqeymo lala beegsado hargeysa iyo sidoo kale magaalooyinka ugu muhiimsan ee berbera ee duqeymo lala beegsadana si ay ugu badbaadaan ee shacabka ee somalilan wixii faahfaahin kale ka soo kordhaa ee wararka u dhexeeya bariga dhexe colaada iiraan iyo maraykanka iyo sidoo kale xiisada ee geeska afrika iyo sidoo kale baabulmandab iyo badda cas halkaan ayaad kala socon doontaan